زكاة حج والشهادتين. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقليلنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وبعد. أما بعد ويال waxaanu joognaa cashirkeenii 101 oo ka mid ahaa xusnu lmuslim min adkaadi lkitaabi wasunna. waxaanu joognaa ducaau lmuqiimi lilmusaafir, ducadii qofka muqiimka ahaa oo uu akhrin lahaa lilmusaafiri, safarka qofka aadayo. ducaau lmuqiimi, ducada muqiimka oo akhrinayo lilmusaafir, qofka safarka ah korkiisa oo uu akhrinayo. qofka guriga looga tagayo oo joogo, qofka baxayo oo safarka ah, ducadii oo uu akhrin lahaa. astawdic allahu diinak wa amaanataka wa khawaatiima camalik. astawdic allaha, ilaahan ku wadeeca dhigayaa, diinaka diintaada, ilaahay baan kugu wadeeca dhigayaa diintaada. wa amaanataka iyo amaanadaada, ilaahay baan kugu wadeeca dhigayaa. wa khawaatiima camalika, camalkaada kuwa ugu dambeeyo oo noloshaada lagu soo khatimayo, ilaahay baan kugu wadeeca dhigayaa. intaa ducadani musaafirka ayaa iskale, waxaana akhrinayo oo u ducoynayo qofka muqiimka markaa ah. zawadaka allaahu ayuu ou ziyaadinayaa. zawadaka allaahu taqwa wagafara dambaka wayasara laka alkhayra xaythumaa kunt. zawadaka allaahu, ilaahay ha kuu ziyaadiyo attaqwa, alla ka cabsi. wagafara dambaka, ilaahay dembigaaga ha dhaafo. wayasara laka alkhayr, wayasara, ilaahay ha kuu fududeeyo, laka adiga alkhayr, khayr ha kula kulmiyo, ha kuu fududeeyo, xaythumaa kuntu, meel walbo aad joogto. altakbiiru waltasbiixu fi sayri safar, ducada 200. altakbiiru, takbiirtii allahu akbar la dhihi lahaa, waltasbiixu, iyo tasbiixdii subxaana allah aheyd, fii sayri safari, safarka socodka marka lagu jiro, safarka marka lagu dhex jiro socodkiisa, ducadii la akhrisan lahaa. qaala jaabir radia allahu canhu, jaabir wuxuu yidhi allah ka raadi noqdee, kunnaa waxaynu nahay idaa sacadnaa, markaynu korayno baabuurka ama gaadiidka, kabbarnaa waynu takbiirsanaa, allahu akbar ayaynu dhahnaa. wa idaa nasalnaa, markaynu kasoo degayno gaadiidka iyo hasha, sabbaxnaa waynu tasbiixsanaa, oo subxaana allah ayaanu dhahnaa. ducaau lmusaafiri, ducadii qofka musaafirka oo akhrin lahaa idaa asxara, marka waqtiga suxuurta la gaaro, habeenkii waqtiga suxuurta marka la gaaro, ducada oo akhrisan lahaa qofka safarka ah. safaroo aaday waqti mugdiyo ayay ku noqotay, habeeno 9 sac iyo habeeno dambe oo waqtiga suxuurta ayay ku noqotay. samica saamicun bixamdillaah wa xusni balaa'ihi calaynaa, rabbanaa saaxibanaa wa afdil calaynaa, aacidan billaahi min annaari ayuu akhrinayaa. samica wuu maqlay, saamican maqal wuu maqlay, bixamdillaahi, ilaahi mahadiisa ayagoo ku dheehan, ama ilaahi mahadiisa ku dheehan. samica wuu maqlay, wuxuu maqlay, saamican maqal wuu maqlay, bixamdillaahi, ilaahi mahadii ayuu maqlay, alxamdu lilaah ayuu maqlay. wa xusni balaa'ihi calaynaa, wa xusni balaa'ihi, nimcooyinkiisa wanaageeda, calaynaa korkeena ayuu yeelay. wa xusni balaa'ihi, nimcooyinkiisa wanaageeda, calaynaa korkeena ayuu yeelay. rabbanaa rabbiyow, saaxibnaa nala saaxib, wa afdil alloo naga fadli, calaynaa korkeena fadli yeel. caa'idan billaahi, ilaahay waxaan kaa magangelaynaa
من النار نارتين كامن قلينا سمع سامعا بحمد الله سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا ربنا صاحبنا وأفضل علينا أعوذا بالله من النار. الدعاء دعوذ إذا نزل مركو دقايو منزلا قري مركو دقايو قفك في سفر مركو كدحجرو أو غيره أما غير كيسة تصالة سفر آدين ملفك آيات آدي gaadiidkii ayaa halaabay mise meeshii ay habeen noqotay meel la seexdo ayaa la rabaa guri ayaa la rabaa guriga markaad aad degi laheyd oo adigoo safar ku dhex jiro aad degi laheyd ama fii gayrihi ama meelaan adigoo safar ahayn meel ayaad degaysaa inaad akhrisataa la doonaya ducadan marka acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaqo. الدعاء دعودي إذا نزل مركو دقايو قفك منزلا قري في سفر مركو كجرو أو غيره أما غير كيسا قري آيات بيرو أما تندو آيات ديسنيسا بيره دحديسا مركان وحالة دونا إنا تأخرسة مرول بو آد قريقا ميل عصب آد دقيسو قري آد دقيسو ديسنيسو سفر كجر أما كجرين أعوذ وحن كامل قال يا الله بكلمات الله كلمدوين كذا التامات دمسترا من شر حقيدا كامل قال يا ما خلق وحد أبو طيور أن شرطوذا. ذكر الرجوع من السفر ذكر حسكي والآخرين لها الرجوع مركا لغسو لابتو من السفر كمركا لغسو نخضو يكبر وتكبير سنة يا خوفك على كل شرف تاك والبمير والبؤتاك أو تكبير سنة يا 3 تكبيرات 6 تكبيرات مير والبؤمتاك والبمركات قد بيسو أدلوك ساريسو 6 مرات واحد ليذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ثم يقول وحوليها كذب لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا حقله عابد مجر إلا هو إلا الله أسقم وياني وحده كلجيسا وحيدينا لا شريك له وحنا ملا وذاجنينه له الملك بقرتو يد إلهان شاء الله أسقناتي وله الحمد مهضا أسقه أسقناتي وهو على كل شيء وحو البناء شيء والباء قدير الله وكرا آيبونك وصونقنا آيونهاي تائبونك والله توبت كان آيونهاي عابدونك وعابدا يا نهو إلهي عابدا لربنا ربنا حامدونك ومهدنا وين نهاي. صدق الله إلهي وكر شيغي وعده بلن كيسا ونصره أهيلي عبده أدون كيسا وهزم الأحزاب أحزابتي إسبهيسيجين وجبيي وهزم وجبيي الأحزاب إسبهيسيجو وحده ألا كليجي باجبيي. ما يقول قفك وحورها من أتاه هدو إيماده أمر يسره فرح قليو أو يكرهه أمر أو نعايو أمر أو لبسنايو أو نعايو هدو إيماده أمر أو كفر هدو إيماده وحا لها. كان صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وحوءها إذا أتاه الأمر هدو إيماده أمر يسره فرح قلينيسو قال وحوله ديري الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكره ودوي ماذا أمر أو نعايو أو كره سنايو قال وحوله جري أم وحوليه الحمد لله على كل حال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرح قليل مركوي ماذا وحوليه الحمد مهد لله الله سكناتي الذي الله صو بنعمته نعمتي صدرته بسو نعمته نعمتي صدرته تتم الصالحات صالحات كنوتام يلي أو وناقا نوتام يلي أي مهدا أسقناتي. وإذا أتاه الأمر يكره ودو أمر لبسنا ويما قال وحوليه الحمد مهد لله ألا أسقناتي على كل حال حال والبو كركي ألا أسقناتي مهد على كل حال والبو خفك سجنيا وحال دونيا إنه إلهي سيدا ويرادو هدو عمر حون أما عمر نعاي هدو كدعو أما هدو كوي ويمادو تصالوات سعوت ميلا السجد درستا الحمد لله على كل حال. أمر أو فرح لغو كان الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات آد لذاي. فضل الصلاة على النبي
fadliga oo leeyahay nebiga sallallahu calayhi wasalam in lagu saliyo sallallahu calayhi wasalam naxariis iyo nabadgelyo korkiisa alla ayaa leh. qaala sallallahu calayhi wasalam nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi man sallaa calaya qofkii ugu saliyo korkeyga salaatan hal jeer ugu saliyo salla allahu calayhi ilaahay ayaa korkiisa ku saliyo biha halkaas jeer darteeda 10 jeer ayuu ilaahay ku salinayaa. haddaad nebiga sallallahu calayhi wasalam hal jeer aad ku saliso 10 jeer oo ilaahay kugu salinaya adiguna oo naxariis ilaahay subxaanahu watacaala kuu naxariisanaya. wa qaala sallallahu calayhi wasalam nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tajcaluu haka yeelina qabrii qabrigeyga ciidan meel laysugu yimaado haka yeelina oo ciid camal haka dhigina. wasalluu calaya igu saliya fa ina salaatakum salaadiina iyo salintaad igu salisaan tablugunii way isoo gaaraysaa xaytha kuntum meel walba aad joogtaan. marka walaalayaal waxaa la doonayaa nebiga sallallahu calayhi wasalam in lagu saliyo adigoo meel walba joogto. nebigu waa ku maqlayaa, ma ahan inaad qabriga aad tagto aad waxaad soo duubduubto oo nebiga qabrigiisii soo duubto adigoo weliba dadka tusaayo oo ku faanayo mise wax kale la jeedo. maanta waxaad arkaysaa dad tagaa qabrigii nebiga ee kacbada kadibna isku soo duuduubayo oo dhahayo waxaan tagnay qabrigii nebigaan tagnay oo dhahayo. bacdamaa arrintaasina waa arrin xun oo ilaahay subxaanahu watacaala aad kaga caroonaya weeye. maxaa yeele haddii aad nebiga sallallahu calayhi wasalam aad ka dhigto qabrigiis meel laysugu yimaado farxad iyo ciid iyo waxyaalaha aad ka dhigto, nebiga arrintaa wuu diiday oo wuxuu yidhi laa tajcaluu qabrii ciidan qabrigeyga haka dhigina meel laysugu yimaado. wasalluu calaya igu saliya fa ina salaatakum tubligunii salaadiina iyo salintiina isoo gaaraysaa xaytha kuntum meel walba aad joogtaan. wa qaala sallallahu calayhi wasalam nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi albakiilu qofka bakiilka ah waxaa weeye man dukirtu qof leegu sheegay cindahu agtiisa leegu xusay falam yusalli calaya aanan ugu salinin. marka waxaa la doonayaa marka qof uu yiraahdo muxamed uu yiraahdo adiguna inaad tiraahdo sallallahu calayhi wasalam. qaala nabiyu sallallahu calayhi wasalam qof markuu nebiga ku saliso mar walba aad maqlayso dhegtaadii ku dhacayso nebiga ku sali. albakiilu bakiilku waxa weeye man qof waaye dukirtu leegu sheegay cindahu agtiisa falam yusalli calaya aanan igu salinin korkeyga. wa qaala sallallahu calayhi wasalam nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi ina lilaahi ilaahay wuxuu iska leeyahay malaa'ikatan malaa'iko sayaaxiina dalxiisaya fil ardi dhulka dalxiisaya yuballiquunii waxay isoo gaarsiinayaan min ummatii ummadeyda xaggeeda waxay igaga soo gaarsiinayaan assalaama salaantay iga soo gaarsiinayaan. haddaad nebigu ku saliso iminka waa ku maqlayaa wuuna kaa soo celinayaa salaantaas waa kaa soo jawaabayaa wacalaykum assalaam ayuu ku leeyahay. ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday malaa'ikatan malaa'ig sayaaxiina dalxiisaya fil ardi dhulka yuballiquunii waxay isoo gaarsiinayaan min ummatii ummadeyda assalaama salaanta iga soo gaarsiinayaan. wa qaala sallallahu calayhi wasalam nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi maa min axadin axad ma jiro yusallimu calaya aniga islaamayo oo nabadgelya alle i weydiinayo ilaa radda allahu calaya ilaa ilaahay wuxuu korkayga ku soo celinayaa ruuxii nafsadeyda iyo ruuxdeyda xataa arudda ilaa aan kaga jawaabo calayhi korkiisa assalaama salaantii ilaa aan kaga celiyo kaga jawaabo. nebiga wuxuu leeyahay maa min axadin yusallimu calaya qof ma jira aniga islaamayo ilaa hadduu islaamana radda allahu calaya ilaahay wuu ugu soo celinayaa ruuxii ruuxdeydii ugu soo celinaya xataa arudda calayhi ilaa aan korkiisa kaga soo celiyo assalaama salaantii ilaa aan kaga soo celiyo. 108 ifshaau salaami salaanta in la faafiya kheyrka iyo wanaagga ay leedahay. qaala rasuulullaahi sallallahu calayhi wasalam nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi laa tadkhulu ljannata jannada heli maysaan oo geli maysaan xataa tu'minuu ilaa aad rumaysaan walaa tu'minuu mana rumaynaysaan xataa taxaabbuu ilaa aad isjeclaataan. awalaa adullukum war ma idin tusiyaa calaa shayin shay idaa facaltumuuhu haddii aad samaysaan taxaababtum aad isjeclaanaysaan. saxaabadu nacam ay yidhaahdeen haa yaa nebiy allah. qaala nebigu wuxuu yidhi afshu salaama baynakum afshu salaama salaanta ku faafiya baynakum dhexdiina ku faafiya waa isjeclaanaysaan.
bacdamaa marka salaantaasi iyo isjaceylka waxaa lagu xiray qofka inuusan janna galaynin ilaa oo rumeeyo. dadka wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam jannada ma galaysaan ilaa aad rumaysaan, mana rumaynaysaan ilaa aad isjeclaataan. marka jannada waxay ku xiran tahay inaan ilaahay aan rumayno, rumayntan waxay ku xiran tahay inaan anaga aan isjeclaano. anaga markaan isjeclaanan waxaan isku jeclaan karnaa inaanu isku faafino dhexdeena salaanta, inaanu isalaamno. uunu imaan doona xadiis dhahayo qofka aad taqaanid iyo qofka aad ka seeninba salaanta ka celi oo salaan uunu imaan doonaa. لا تدخلوا الجنة جنة قلميسان حتى تؤمنوا إلا ترميسان ولا تؤمنوا مرمينيسان حتى تحابوا إلا تسجعلاتان. أولا أدلكم وربئذين تصيع على شيء إذا فعلتموه تحاببتم هديعة سميسان وتسجعلانيسان أفشوا السلام بينكم. 3 سدح من جمعهن قفك أي أكلنتو فقد جمع الإيمان إيمانك أي أكلن صدي أي أكل مي. كو الإنصاف من نفسك. لبو وبذل السلام للعالم. 6 والإنفاق من الإخطار. كو مدكوات الإنصاف من نفسك نفس الضاد إنت أقر صورتو مركي آت لو الظلميو مركي أذقدت الظلمسو. كو الإنصاف أقر صورت من نفسك نفس الضاد إنت أقر صورتو آت عليسو وقتها ضد ظلمسو أما أذقو لو الظلميو با. النبي صلى الله عليه وسلم وحوليا انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ورالك هذا وقرقار هذا أسيق الظلم السمية أسيق هذا الظلم لغو سمية. وصحابة وحكو إلى النبي الله وان بقرن هذا أسيق الظلمية هذا أسيق واحد ظلمية سيدان بعد وعلينينا وأن أوهيلينينا ولالكينا مركز النبي وحكو إلى هذا ولالكين الظلم كعليا سيداس آيات أوهيلسين. لبو وبذل السلام سلانتا إن لفافيا للعالم عالم كإن له فافيا. وبذل السلام فافين سلام إن لفافيا للعالم عالم كورن إن له فافيا. 6 والإنفاق قفك إنه بحيا أو وح بحيا من الإختار وقت قدبك أو جرو أو دتك أن أي باهنيهين أسيق وحو أبود قفك إنه بحيا. عدي قفك 6 هذا أي أكلنتو فقد جمع الإيمان إيمانك أي أكل مي. 3 6 من جمعهن قفك أي أكلنت فقد جمع الإيمان إيمانك أي أكلن صدي. الإنصاف من نفسك وقرسولت نفس الدار. وبذل السلام للعالم عالم كسلامة إن لغفا فيها. والإنفاق من الإختار وقتيض لبك جرنا إن وحل بحيا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه بن عمرو وعن عبد الله بن عمرو ورضي الله عنهما. عبد الله بن عمرو أيلي وري إله كرال نقضي لبضوضبا أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم نبي سؤالي أي الإسلام إسلامك خير يا أخير بدن. أي الإسلام إسلامك خير يا أخير بدن إسلامك إذن. قال النبي حويري تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. تطعم الطعام تطعم قوذي الطعام راشينك كخوذي مساكين تصي أو خوذي. وتقرأ أخري أو السلام سلامتنا أخري على من عرفت قفك أتقرنيست أو أتخانه ومن لم تعرف قفك أذن كسين بسلام هدي أتلوذا سميس لوذا أرين وحتى قفك إسلامك أوقير بدن. تطعم الطعام مساكين تخوذي سلامتنا قفك أتقرنيست قفك كسين بسلام. كيف يرد السلام على الكافر؟ كيف يرد سداب لو جواب يا أو لو علنا يا السلام سلامته على الكافر ننقال إذا سلم هدوك سلامه ننقال أي وحوك ويراد السلام عليكم معاد أو جواب يسادوك ويرادو. النبي صلى الله عليه وسلم حوليها إذا سلم عليكم إذا سلم هدي إذن سلامان عليكم كركينا أهل الكتاب يهود هدي إذن سلامان فقولوا لها وعليكم لها maxaa yeelay waxay leeyihiin saama calaykum maalin nabi inuu yimaadeen waxay yiraahdeen saama calaykum markaasuu nabigu wuxuu yiraahday wa calaykum nabi allo geeri korkaada ayeelo. markaas Aisha waxay tiri yaa nabi allah war miyaadan maqlaynin dadkan saama calaykum ay ku leeyihiin maxaa oo salaantii oo celisay ay ku qaylisay ay dadkeen ay tiraahdo lacnada ilaahay idinku dhacday baxar saan ay dadkii ay canaanatay.
nebiga wuxuu yidhaahday caaisha miyaadan maqlin inaanan aniga u jawaabay oo aan dhahay saama calaykum markay dhaheen wacalaykum ayaan dhahay ilaahay korkiina ayeelo anigana sidaasaan ugu jawaabay aniga waa laga ajiibayaa ducada ayaga laakiin malaga ajiibaya habaarka iyo waxay sameynayaan idaa sallama calaykum hadday idin salaamaan ahlulkitaabi kitaabka ahlkiisa waa yahuude faquuluu dhaha wacalaykum korkiina adducaau ducudii cinda simaaci marka uu yeerayo cinda simaaci marka la maqlo siyaaxi diiki maqalka weeye adducaau ducda siyaaxi diiki diiqa qayladiisa ducadii la akhrisan lahaa ama cinda simaaci marka la maqlo siyaaxi diiki diig qaylihiisa ama diiq wanahiiqi lximaari iyo ximaar qayladiisa marka la maqlo maxaa la leeyahay diiq qaylina aragtay kab ha ku tuurin haracdaynin duco bay leedahay idaa samictum haddii aad maqashaan siyaaxa diyakati diiq codkiisa iyo qayladiisa fas'alu llaha ilaahay weydiista min fadlihi fadligiisa diiq markuu yira waxaa leedahay allaahuma inii as'aluka min fadlik aad leedahay اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم سيدات آية ليدا مركا اللهم إني أسألك من فضلك اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم وضيق مركا أويرايو فاسأل الله إلهي ويديست من فضله فضل جيسة فإنها محا ضيقة رأت وحو أرك فإنها أسقى ضيقة رأت وحو أرك ملكا ملك وإذا سمعتم هديئة مقشان نهيق الحمار حمار دميرك خيلدي سنة فتعوذوا بالله إلهي كما قال من الشيطان شيطانك فإنه دميرك رأى وحو أركي شيطانا شيطان أيو أركي عدو دمير يرو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ده ديق دو يرن ملائكو أركي اللهم إني أسألك من فضلك ده ديق وحيواناتك وعجيبك بدن وحبضن أيو ديري حيواناتك له تصالي ديق صلاة الصبحات كي وكالدتك وحوك كعينيا صلاة وكعينيا waqtiyada alla subxaanahu watacaala loo istaaga habeenadii wuu yeerayaa sida 8 sac 9 sac waqtiyada salaatuleylka loo kaco wuu yeerayaa weliba asigoo aanan cid ka kheelisiinin ilaahay mooyaane ayuu yeerayaa taasi ayuu leeyahay marka adducaa ducudii cinda simaaci marka la maqlo nubaaxil kilaabi khaylada eyga billayl habeenkii marka la maqlo habeenkii ey khaylinaad maqashay maxaad akhrinaysaa دعاء نباح الكلاب بالليل أما سماع سوغيلو أسكمت إذا سمعتم هديئة مغشان نباح الكلاب إيغ خيلذيس ونهيق الحمار إيو دميرك خيلذيس بالليل هبينكي فتعودوا بالله إلهي كما قال منهن لمضوضبا فإنهن لمضوض وحي أركايان فإنهن لمضوض يرين وحي أركايان ما لا ترون إذنك وحاذن أركين أي أركايان إذا سمعتم نباح الكلاب eeyga kheyladiis markii aad maqashaan wanahiiqa xamiiri iyo dameerka kheyladiisa bileyl habeenkii fatacawaduu billaahi ilaahay ka magangala minhunna labadooduba fa inahunna lamadooda yarayna waxay arkayaan maa laa tarawna waxaadan idinka arkaynin ayay arkaan shayaadiimanka iyo jiniyada ay arkayaan adducaau ducudii liman qof sababtahu la caayay qof baa qof caayay ducudii oo akhrisan lahaa weeye ama qofka qof caayo adiga da qof caaysid ducdaad akhrisan leed adducaau ducudii liman sababtahu liman qof usugnaatay sababtahu la caayay ama qof dad wax caayay allah qaala sala allahu calay wasalam nabi sal alay wasalam wuxuu yidhi allaahumma allaheeyow fa ayumaa mu'min walbo sababtuhu aan caayay mu'min walbo aan caayay fajcal daalika arrinka iga yeel lahu qurbatan dhawaansho iga yeel ilayka xaggaadan ugu soo dhawaanayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaaman ugu soo dhawaanayo mu'min walba oo aan caayay fajcal daalika arrinka iga yeel lahu asiga weeye qurbatan ilayka dhawaansho xaggaada ah yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo maa yaquulu lmuslim muslimku waxa uu dhahayo idaa madaxa almuslima muslim hadduu ammaano qaala sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi nabi sal alay wasalam wuxuu yidhi idaa kaana axadukum axadkiina hadduu ahaado maadixan mid wax ammaanayo hadduu uu yahay saaxibahu walaalkiisa saaxiibkiisa hadduu ammaanayo laa maxaalata haddii ay laga maarmaan tahay inuu ammaano mooyaane sidaanuu leeyahay marka idaa kaana axadukum axadkiina hadduu yahay maadixan mid ammaanaya saaxiibahu saaxiibkiisa laa maxaalata
هذا لغا مارمان اي تا انو امانه موياني فليقل حوليا احسب فلانا والله حسيبه ولا ازكي على الله احدا احسب ان كان يعلم ذاك كذا وكذا سيدا يوليا احسب فلانا وان امالينا يا هبل والله حسيبه الهي لكن حسيبه ساء وحسابيه ساء ولا ازكي واماني مايو على الله إلهي كركيس أحدا قفنا وأماني مايو أحسبه أسيغا أيا أك إلى سبحانه وتعالى أو كور هايو حساب تيسا إن كان دؤيا يعلم مد أك داك أرنكا مد أك دؤيا كذا وكذا 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 سدا ده قفك سداسكو أمان ها أحسب فلانا هبل وان أمالينا يا هبل والله حسيبه إلهي أيا حساب تيسا أو حساب تيسا أيا أك ها ولا أزكي على الله إلين أماني ما أحدا قف أحسبه أو أسيغ حسابتي ساي أو أوكيا إن كان يعلم ذاك هدو أرينك إن كان دويا يعلم مدؤك ذاك أرينك مدؤك دويا سيدا إنويا كذا وكذا وكذا سيدا قفك أكو أمانو وأكو أماني كلي قفك إسكديميس ما يقول المسلم قفك المسلم كحورها إذا زكي هدي لأمانو أذيك قفك أمانتي أما adiga hooyada iyo aabaha cida doontana ku amaaneen maxaa dhaysaa marka allahumma laa tu'aakhidnii bimaa yaquuluuna waghfir lii maa laa yaclamuun wajcalnii khayran mimaa yadunnuun ayaad dhaysa allahumma alleheeyow laa tu'aakhidnii ha ii qabanin bimaa yaquuluuna waxay dhahayaan ha ii qabanin waghfir lii ilaayow ii dembi dhaaf maa laa yaclamuun waxay ogeyn iiga dembi dhaaf wajcalnii iga yeel khayran khayr mimaa yadunnuuna waxay iga malaynayaan khayr iga dhig sidaa dheh kayfa yulabbi lmuxrim sidoo u talbiyeysanaya qofka muxrimka ah oo xaramka aaday soo xajinayo fil xaji xajka dhexdiisa aw ilcumrati ama cumrada labayk allaahumma labayk xajkan waa talbiyeysanaysaa cumradan waa talbiyeysanaysaa labada marba waa talbiyeysanaysaa labayka waan kusoo ajiibay allaahumma alleeyo labayka waan kusoo ajiibay labayka waan kusoo ajiibay لا شريك لك وحلو شريك يلا مجرت لبيك وانكسو أجيبي ماذا إذن والنعمة النمع لك أذيك يكو سكناتي والملك يبخرتو إذا أذيك يكو سكناتي لا شريك لك وحلو لا شريك لك شريك نكو مسكنان أذيك الله التكبير إذا أتى الركن الأسود التكبير تكبيرة الآخرين إذا أتى دوقفك ماذا الركن الأسود حجر الأسود كدغح مدوغ مركو يمادو تكبيرته آخر الله طاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوة ضوافي بالبيت بيت كأيو ضوافي طاف النبي صلى الله عليه وسلم نبي قوة ضوافي بالبيت بيت كأيو ضوافي على بعير أسيقورة الدلسارا أيو النبي ضوافي كلما أتى الركن مرول بو ركني أو تغو أو حجر الأسود كأكتيس أو تغو أشار إليه وإشارة حجر الأسود وقعنت كتاغي أم أشا ووتي أو كتاغي بشيء شيبه كتاغي عنده أكتيسة وكبر ون تكبير سناي كلما أتى الركن مرور بركن أكتيس أو تغ أم حجر الأسود كوا ركن مركو تغو أشار إليه وأشار بشيء شيبه إشارة عنده أكتيسة يالو أما أكتيسة وكبر الله أكبر ونداء الدعاء دعوي بين الركن اليماني الركن اليماني انت ودحيسو والحجر الأسود يا حجر الأسود كأنت ودحيسو دعويات آخر سنة لهذا مركة تكتب الركن اليماني يا حجر الأسود دحدو ذا دعويات آخر سنة لهذا دعوية سنة لهذا محاد لهذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ربي وآتنا نصيب في الدنيا دحديدة حسنة وناكي حسنة وفي الآخرة آخرة حسنة نصيب وقنا نقبت بادي عذاب النار عذابك نار نقبت بادي دعاء الوقوف على الصفا والمروة دعاء الوقوف كوريتانك أو الكورايو أما دول استاجع له الوقوف استاجع على الصفا والمروة بورت الصفا ليراد المروة ليرادو استاجع دعاء الأخرسان لها لما دنا مركو دوادي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم من الصفا صفا مركو دوادي قرأ وحوير وقرف وحو أخريه إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر آية إن الصفا والمروة مروة بورت ليرادو
min shacaa'ir illaahi ilaahay calaamaadkiisa ayay ka mid yihiin. abda'u waan ka bilaabay bimaa bada'a allaahu bihi ilaahay wuxuu ka bilaabay aan ka bilaabay. ilaahay wuxuu ka bilaabay safa, anigana safaan ka bilaabay. nebiga safoo kasoo bilaabay kadib uu marwa tagay. muxuu yidhi alle ina asafa walmarwata. marka nebi abda'u waan ka bilaabay bimaa bada'a allaahu ilaahay wuxuu ka bilaabay. fabada'a wuu ka bilaabay nebiga bisafa buurta safa, faraqiya calayhi wuu sii koray buurtii dusheeda xataa ra'a albeyta iloo beytka u arkay, fastaqbala alqiblata qibladoo soo qaabilay. buurta safaad fuulaysaa markaad xajka joogto weeye. marka aad fuusho kor aad tagto beedkii, markii aad korka aragto adigoo dharkaadii cadka wato oo xajkii xijinayo, gacantaa kor u taaganaysaa, ilaah ayaa baryaysaa. adigoo halkaa buurta taagan aad ilaahay tuugaysaa. qof walbana wuu mashquulsan yahay, allahu baryayaa. buurta saas weyn, qof dhinac walbaa laga saaran yahay. adiga markaad kor markaa fuusho qibladaad qaabilaysaa, waa takbiirsanaysaa, waa xamdinaysaa, kadibna ilaah aad waxidaysaa, waad duceysanaysaa, arrimahaada kale ka hadlaysaa. marka oo ducooyinkaada kale ilaah weydiisanaysaa. fabada'a wuu ku bilaabay bisafa safa, faraqiya wuu sii koray calayhi korkeeda nebiga xataa ra'a albeyta iloo beytkii ka arkay, fastaqbala alqiblata qibladan ayuu qaabilay. fawaxad allaha ilaahay ayuu waxido oo keli yeelay oo wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ayuu yidhi. wakabarahu wuu takbiirsaday, allahu akbar ayuu yidhi. waqaala markaasu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. laa ilaaha ila allah alla xaq luu caabudo ma jiro ila allahu ilaahay mooyaane, waxdahu keligiisaan waxidaynaa oo aan caabudaynaa. anjaza wacdahu wanasara cabdahu. anjaza wuu fuliyey wacdahu balankiisu u fuliyey. anjaz wuu u fuliyey wacdahu balankiisa, wanasara wuu u hiiliyey cabdahu adoonkiisa. wahazama wuu jibiyey alaxzaab isbahaysiga waxdahu keligiis ayaa jibiyey. thuma dacaa kadib wuu duceystay nebiga bayna daalika intaa kadib. qaala wuxuu yidhi marka mithla haadaa sidaanoo kaleu yidhaha 3 maraatin 3 jeer oo kusoo celiyey. laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lmulku walahu alxamdu calaa kulli shayin qadiir. laa ilaaha ila allah waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba wacdah. wahazama alaxzaaba waxda markuu dhahay wuu ducoystay. arrimahaad adiga doontaa kasii duceysanaysaad ka hadlaysaa. kadibna nebiga sal allahu alay wasalam 3 jeer ayuu sidaa yidhi. alxadiid wa fiihi gudihiis waxaa ku jiro fafacala cala almarwati, facala wuu ku samaynayaa marwa dusheeda buurta marwa kamaa facala cala safa sida hadda aan soo sheegnay oo buurta safa uu ku sameeyey. adducaau ducodii yowma carafata maalinta carafo ducda la akhristo. yowma carafa nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay maalinta carafa afdalu ducaai alxamdu lilah وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي له. أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله. هو حديث كاثي مركا دعو دعيستو حقو خير بدن يوم عرف الدعو دعيستو. يوم عرف فضل كلا إليدا وحوي إلهي سبحانه وتعالى وحو باهينيا وقفانيا ملائكتي سددك وليا أركا dadkaygii way i imaadeen ayagoo basaasan oo booraysanay i imaadeen, way ituugayaan way baryayaan degta oo daata idinkoo dembigiini oo dhan la dhaafay daata ayuu ilaahi subxaana watacaala uu leeyahay. marka carafa waa maalintii diinteena la kamilay oo ilaahi subxaana watacaala uu yidhi alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina weeyaan. carafa maalin maalmaha ka mid aan cumar binu khadaab ayuu nin u yimaado oo yahuudi ah. markaasu wuxuu yidhaahday cumar ayuu yidhaahday haddii oo aayad kitaabkiina ku dhex jirto anagana la soo dejin lahaa mar walba waxaan ka dhigi lahayn farxad iyo maalin aynu dabaal degno ayaan ka dhigi lahayn haddaa anagana ula soo dejin lahaa. markaasuu cumar wuxuu yidhaahday aayadda waa kume alyawma akmaltu lakum oo liyaa ninkii yahuudda ahaa. cumar wuxuu leeyahay waxaynu ognahay maalintay soo degtay, waxaynu ognahay halka uu nebiga taagnaa meeshay kusoo degtay, waxaynu ognahay maalintaas nebigu meesha uu taagnaa waynu ognahay, waqtigay soo degnin waa ognahay. sidaasuu leeyahay cumar. waxay soo degtay yowma caraf, maalin carafay soo degtay, waxay soo degtay maalin jimcay soo degtay. markay soo degaysa nebigu wuxuu taagnaa waaqifan bicarafa, carafa ayuu taagnaa. khayru ducaai ductan u khayr badan ducaau yowmi carafa weeye, ducada yowma caraf la duceysto. wa khayru maa qultu
aniga waxaan dhahona wa khayru waxaa u khayr badan maa qultu waxaa anigaan dhaho aniga wannabiyuuna iyo nebiyadii hore waxay dhahaan min qabli aniga ii horeysa waxay dhahaan waxaa u khayr badan wa khayru maa qultu aniga waxaan dhaho waxaa u khayr badan wannabiyuuna iyo nebiyadii hore min qabli aniga ii horeysay laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulk walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir ayaa u khayr badan uu leeyahay. addikru dikri cinda almashcari alxaraam, mashcari alxaraamka agtiisa markii la yimaado. rakiba sala allahu calayhi wasalam, rakiba wuxuu soo koray nebiga alqaswa hashiisii qaswa xataa idaa ataa almashcar alxaraam ilaa uu imaaday mashcar alxaraamka agtiisa fastaqbala alqiblata qiblada ayuu qaabilay fadacaahu wuu duceystay wakabarahu wuu takbiirsaday wahallalahu wuu tahliileystay laa ilaaha ila allah oo yiri wawaxadahu ilaahu waxiday falam yazal kama zuulin nebiya waaqifan inuu istaagnaanayo oo istaagayo xataa asfara ilaa oo waagii ka bariyay jiddan aad oo waagiga u bariyay uu soo butaacay fadafaca nebigu wuu soo baxay qabla an tudlica ashamsa intaysan qoraxda soo bixin ka hor ayuu soo baxay intuu soo aaday mina ayuu soo aaday marka fadafaca qabla an tudlica ashamsa mina ayuu soo aaday intaysan qoraxda soo bixin atakbiiru takbiirtii. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.